السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير شرفت الله ذن بركة مول الباجوكتان إلى وحن كبري إن الدنيا آخر ودمجنا نونا نحرستو أصحاب فربنا إلى وذاكتي إن هذا نيو محمد مقالة بدنا هذا ضد كوعي جرتي ضد كان هذا أشيء جرتي وهي قفضان إن هذا واحد سلسك دايو ونيو أرنتان مقالة كوسو كورداي مس عبار جرت أنا هرداي عبار جرت ما واحد قبته ذو كهذا الشيء أنا واحد مو كسينين بقى واحد عصبة هاد مرة واحد قبل واكه الدونا وحيابها هاد يوكل في واحد كمل هدي لقيه لهاي ضد كيرير أرنتان كوسو بدتي إنه واحد إلى لقيه أنا يردي وحي صامر يعني ما عرفت حلقي أو dhalinyarnimada wax walba la tijaabinayay qofka weynaa doona kulay wada la wada soo mara way galwada jir soo mare maybe way iska diidona insha Allah ta'ala laakiin markii aragtay bil cagsigeeda dadkii waaweynaa qaar kood inay arintan galeen markaas waxaan dhahay niyow yar i weyn arintan waa la isku dhaxaya cabaarinta isku dhaxayada كل بني الله رسول كان صلى الله عليه وسلم وحود هاي قفكي حمان أركا وأنو قعنتي سكجي عليا مركب كواد هدوسن أول لهنا وأفكا كشجع إن وحرجينا إن قفك استومس لنا إنه أودو حديث واحد لقى عبسنا جنو أفك واحد كشجع ولو إلهي هلا بقو هرتو وحام كهلايو الموضوع هذا شيء مركز dad qaar xitaa social media ka aragteen video qaar waxaan la dhahayo caadiyan waxay dhahaan list gas waxa la dhahaa list gas ama kale laughing gas na waa la dhahaa waxaan ku aragteen maalmahan dambe aragteen qaf buufinta aan naqaanay ilmanimada lagu ciyaari jiray la buufin la baji jiray ama kale kullu tuuturi jiray waxa bilaabatay in loo isticmaalo wax droog ahaan oo kala ah وواح ليست جاس أصلا وح الله استعماله إن ذاتك الوسو يحيو أما كله وح الله استعماله ذاتك حنوك معناه حنون هايو وحنوك لغير هناي سيدا قف دالا يعمل هناك قبل مركا أموري سو كلا حنوك آدو هاي مركا جاس كاس ليست جاس كاس الوحرة حنوك حوار كيرانا حنوك فرا بدنا مهانا والله استعمالك را جاس كاس si darooga ahaan dad badan oo isticmaalo soo daas waxa ku social media qaf buufin dhuuqaad waxa marka qafka normalka waxa iska siin wuxuu dhahaa buufin oo qafkan buufina maxaa qaldan buufin caadi ma waa waxa lagu dhax shubaa gaas yar lagu dhax shubaa gaas waxa uu dhuuqan waxa midka ugu badbaadada fiican waa macnaha wax badan kuma soo gaaray hadaa saas u isticmaashid dad qaabka loo isticmaala xanuun ay ka qaadanaan waa ku dhintaan لكن كم واكب باديسا وواحد قعدت أكوها يسيد دوقاي مركب وحيابا يران كسو قري ميلان كسو ببارا دي وحير الله تنضغ عمل أخرنا شيء قدنا بيقول عصب على إرمان ويقول عصب ينبع مركب ومحلناها مركي لدوقاي وحيلا ددن معان عمل أورنا معان عمل أورنا سامر ددن معان عمل لادها iyada dhan waxay daroogo ku siinaysaa waxa waa ma hawada ka saaraysa adduunka ku gelinaysa daqiiqado kooban waay waxa dhici karta in codkaaga ay bedesho cod waaweyn camal ay yeelanaysa wareer yar way dhici karta inuu kugu keento dadka qaar way suuxaan hadii mask wax mask dad la xirtaa jiro marka hawo oxygen banaanka kama helayaan marka dadkaas waxa dhici karta inay suuxisay maadaama oxygen u soo gelin arrimahaas bahal leh waaye mana rabi inaan dhaho magaalada dad badan cabo dhalinyaro badan cabto dad waaweyn cabo ma rabi inaan dhaho laakiin waxaan dhahaa waa wax jira magaalada ku dhex jirta aniga shakhsiyan wax badan kama ogeen waa arrin maalmahan dambe ugu soo cusboonaatay weliba dad inuu dad hadday bilaabaan ma aragtay inuu qof sigaar cabayo kala hadduu bilaabo waxa dheer inuu sigaar cabayo kan uu bilaabi karaa laakiin qof weligiis bilowd isticmaalo weligiis intuu noolaa
buufintaasoo ka bilaabo qof 17 jir 20 jir hadduu bilaabo waxa dhays war waa yarta war wax kama ogida qof 40 jir hadduu bilaabo wax lala yaabo waa adduunkii markii aad kasii socotay cimriga anaga waxa ku dhimanaa 60 sano meelahaas lagu dhintaa isku celis xitaa adduunko dhan xadiiskii nabiga sidoo soo ummadeedu waxa ku dhimanaysaa 60 meeri meelahaas ku dhimanayna 40 waxa ku har waxa la 40 ilmanimaka 20 ilmanimaka kaaga dhamaanaysaa 20 shaqo ku jirta 20 waxa shaqaysataa ku noolaataa Allah waqti 20 ka dambe waa la rabay inuu qofka dib u soo laabto qof 30 kor u dhaafa 40 kana xitaa dhaafay inuu hadda buufin bilaa wax laga naxaway magaalada bilaaba dhimale in la sii gado oo qofkii gado oo balwadii bahashi magaalada keeno oo la gado caadiina sharciyan waa qalad sharci maaha qofkii inuu daroog ahaan u gado la qaab kale waa loo gadi karaa macnaha in la gado mamnuuc ma laakiin in daroog ahaan loo gado mamnuuc marka arin oo cabsideeda leh waaye waalid kasta waxaan kula talina in ilmahaaga la socotid way kama dareemaysid iyada 2 daqiiqo 3 daqiiqo jiraysaa qofka caadi waaye caadi guriga kugu imaanay ma ka soo inay ka soo sheerto moogi aanu qof cabay arkay malaha oo ka soo sheena la kulmay oo kadib aan fiiri waa inay ka soo uri karto jirkooda laga uri karo laakiin ilmihiina hala ilaashado dadka waaweyn waxaan leeyahay xilli lagu cabo bahashaas ma joogti ilaahayna ha laga baqo yar ama weyn waa in ilaah laga baqo waalidkaaga waa in ilmahooda la socdaan ani waxa ogaay ama dhihi jirin oo xashiisha ku soo batay magaalada war xashiisku waa wax weyn ma hareena waxa ka daran buufintaana dadka dhibaato ku hayso xitaa waxay keentay inuu dadka qaar isla hadlaan waxay leedahay markaad akhrinayay qofka depression uu ku ridaa waxa kale ku ridaa wax maxaa la dhahayay qofka inuu shakiyo shaki qof waa ka shakinaysaa oo leeyahay oo qofku dhow waxa daba socday ka jacay yeelis maxaa waaye marka laakiin waxa ka hadlana qofkii zaad u isticmaalo waaye arinta hadii aad u isticmaashid arimahaas ku qaba dhici kara qofka aad haduu isticmaalo xanuunaha kale ee leedahay waxa dhici kara inuu oo suuxo inuu neerfaha wax ka gaarsiiyo waxyaaba kale uu leeyahay vitamin kan la B12 ama B12 ama B12 inuu kaas ka dhameeyo daas waxay dhahaan qofka haduu isticmaalo B12 inuu isticmaalo waa hadii kaas uu yareeyaa uu ka dhameena waa bahal qatarteeda iska wadata marka aniga waxaan ku talin lahaa nimayow ilaahay ha laga baqo bahalkaas meel la isticmaalay waxyaabo laga aamusi karaa jiro iyo waxyaabo laga aamusi karin waxyaabo ummadda dhan saameynayo aabbayaasha qaarkood waxaa la dhahaa islaanta waa amoor weyn igaarka iyo aruusi hayo moogta hooyadii ilaaba guur rabta maxay wiil aruusaa ilmaheeda boontiga ula jeed waxa waa aabbihii hadduu balowd leeyahay ilmihiisa goorma balowd ka celinay goorma leeda waree balowd ha cun aabbaha abuu leeyahay waxa takniyo ama aabbaha goorma u dhihi karaa aabba iska day ilaan hadalka uu dhihi karaa waree ani qof weyn ahay ad iska daa aabba adigu cabtaa ku taal waxaa arkay video social media dhex yaalo oo gabar gaari ku dhex jirto ingiriiska miyaa meel ahayd mise maraykan af ingiriiska ku rab lagula hadlaya oo bahashi la jiifto baabuurka dhex jiifta maama la bisan waay maybe aroos wax saas inay kema dirac aroos camal wadad waa wax arrin laga naxo dumarkiina meelaha la jiifaan ilaahna dambigiina ha dhaafo wadankii arkeen cirbadiina kusoo batay wadankii Soomaaliya oo narkomaanka waxaan dhahno oo wadanka Norway oo iyagoo waxaas leedahay qofkan uu dhici rabaa mana dhacay adiga weyn oo caafimaadka qaba asameeyay inuu ina horu badata faraha ku istaagtay asoo laabatay waa horaa u dhacaysa mas'ali kartid iyaga laakiin waxa laga yaabaa inay hal saac war qabo may ma dhaco iska fiican yahay waxaas hadii social media ku arkaysa dad noocaas noqdo wadankii qaarkood inta nin shaqaysta hatta kama dareemaysid dhibaatada jirto qofka shaqo subaxda kula soo galaa wuu ka baxaa galabtii kula soo galaa shaqadu ka baxaa laakiin bahashaas waa la isticmaalaa dadka bahashaas buufinta qofkii og dadkii gadana ka saayo ha u digo ha dhahan oo keenin magaalada nooga harhadho arrintan waanadaa isticmaalaya aan meesha rab inaan u sheego waana ahaan u isticmaalaya waxa waaye
in dadka ay gaarto qof kastana la gaarsiiyo in bahashaas khatarna ay leedahay dhibaato ay leedahay diiniin ay kuu ficneen aakharana ay kuu ficneen in la iska daayo dadka qaara markaan waanada camal soo jeedo way soo wacayaan waxay leeyihin maxamedow yaa cabo war ani warbixinta waanada uma sheegaya inaa dadkii idin leeyahay hebel 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 cabo hanay soo wicin adiga qofka ku kasaysa ilaah ka baqdha haddaadan ogeyn ilaahba kuu nimciyey baa wax fiican waaba haddaa waxaas waxba ka ogeyn ilaaha kaa kori haddana laakiin baasha aada u faaftay dad badanna way cabaan ilaah dembigiina ha dhaafo ha layska ilaaliyo waxyaabaha saameynta badan oo leeyahana waxa waaye saameyno adaguu leeyahay qaarkeen inaa aragnaa laga yaabaa waxaan baranooya la dhahaya qofka ku dhacayo no qof kuu fiicnaa waxaa leedahay waxa ay bursado waxa ay daba socdo sheedaam dad qaar waxay ku dhahayan niyow ninna wuxuu leeyahay maanta dhan niyow qof cadaana ay daba socda baabuura ay soo daba socday qaar wuxuu ku leeyahay yahuudda ay tiftifaysa qof soomaaliya caadi aa tahay yahuud maxay kaa tiftifaysaa marka dadka waxyaabahaasaa ku dhacaya markaasaa waxaa arkaysaa qofkii agtaada ka fiicnaa bahashaas inuu aadka inay u badsadeen qofka waxaa ku dhacaysa baranooya marka ilaah aan ka wada baqno hadal badahaan ma buuxiyaa la dhahay ha layska ilaaliyo balwadaas oo listigaas kala dhahay buufintan lagu dhex shubo laafinkaas dada u yaqaan laakiin isku maaday ka samaysan yihiin N2O la dhaho ay ka wada samaysan yihiin asalna waa dawo ahaana loo isticmaalaya laakiin wixii dadka waxay ka arkeen in daroog ahaan loo isticmaalo marka ilaahay ha laga baqo bahashaasna ha layska ilaaliyo qofkii yaqaana qof arrimahaas ku dhex jiro gado bulshadeena u naxno xitaa haddii ay dhici karto adiga wax ka qawaysa dee arrintaa mamnuucay noorga ka tahay in daroog ahaan loo isticmaalee dee qofkaas waxa dhaadan in ummadda haddaa ka heri waysa dee dowladaan ku dhex joogna anaga dowladda kaa qabanaysa dadka waddanka soomaaliya maaha in oday la suuraadi kula hadlayo ama waalidkaa la wado waddanaa joogtaa oo leh shuruuci waxba ka jiro wax kasta ka jiro laama amniyaa jiro laama daroogooyinka la dagaalamaa jiro ilmaha ina u naxno haddii maanta arrintaa aan fiirsan ilmahena mustaqbalka soo taabanaysaa marka balwadda kasta aan dadka ugu digno laakiin midda hadda culayska lagu haasaa waxa ah baashaan buufinta ah oo qofkiina laga di 3 daqiiqo 4 daqiiqo kusoo caawa markaas dadka la mid yahay ilaahay dambigiina ha dhaafo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh